xusayo xuska maalinta boosaha adduunka oo lagu qabtay xarunta wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda jamhuuriyadda Somaliland oo qaranka iyadu mas'uul uga ah boosaha ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah shirkadaha ka shaqeeya adeegga boosta. ugu horreyn waxaa halkaasi hadal ka jeediyay agaasimaha waaxda boosaha ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda jamhuuriyadda Somaliland mudane maxamed cabdikariin xirsi wuxuuna ka warramay maalintani iyo muhiimadda ay leedahay. xuskani waxa uu xusayaa waxa weeye hawsha adag waxaa loola jeedaa waxa weeye in la xuso maalinta lana ogaado hawsha adag ay hayaan adeegayaasha boosaha ama laamaha waxa weeyaan qaada alaabaha waxa weeyaan dadka u ah baahiyaha asaasiga ah. waxaynu ognahay dalkeena Somaliland qaran iyo waxa weeyaan private ba waxaynu ka wada shaqeynaa waxa weeyaan adeegan gaar ahaan waxay wasaaradda isgaarsiinta waaxdeeda boosuhu iyadoo aad waxay xoogga u saartay iyadoo la aasaasay 1993 markii hore dib laakiin adeegeedan loo furay 2018 wax xilligaas uu qabsaday madaxweynaha hadda jooga mudane Muuse Biixi Cabdi oo waxa weyn dardargeliya adeegan isagoo dareensan baahida ay leedahay ilaalinta xogta qaranka. qaar ka mid ah shirkadaha ku shaqeeya adeegga boosta oo halkaasi ka hadlay ayaa ka warramay iyaguna xuska maalinta boosaha adduunka. shirkadaha waaweyn ee dalka waxa ay ku xidhan yihiin shirkadda DHL waana shirkadda kaliya ee caalamiga ee ka shaqeysa maanta dalkeena. sidoo kale shirkadda DHL waa shirkadda kaliya ee ku shaqeysa magaca Somaliland. waxaynu ku shaqeynaa magaca Somaliland oo si international ah dal walba oo dunida ku yaalana marka waxay noo soo dirayo waxaan noogu soo diraa magaca Somaliland inagoo ku tiirsanay cid kale oo dal madax bannaan ka shirkadda weyn ahaan waxa weeye runtii waxyaabo badan oo aad iyo aad aan u fudaydinaa jira waxyaabaha la isgaarsiinayo waxyaabo badan baan ka qayb qaadanaa oo maanta sida qaybta delivery-ga oo kale